Assalaamu calaykum. Wuu bilowday sanadkii cusbaa. Waxaan ku guda jirnaa qeybaha ugu horeeya ama maalmaha ugu horeeya ee sanadka cusub ee 2021. Waxaa jira su'aalo fara badan oo aan jeclahay inaan adigu weydiiyo ama aan dhammaanteen isweydiino. Su'aalahaasi waxaa ka mid ah: maxaa kuu qabsoomay? Maxaad xaqiijisay? Maxaad ka dhabaysay? Ma gaartay hadafkaaga iyo riyooyinkii aad lahayd sanadii tagtay ee 2020? Walaal ha fikirin, hana isku dayin inaad raadisid jawaabta su'aashaasi. Waqtigii hore ama waqtigii tegay ama zamankii tegay ee 2020 way ku dhaaftay. Waxaad hadda haysataa waqti cusub, jaanis cusub iyo sanad cusub. Sida banaanba qofka bini'aadamka ah, waxyaabo fara badan oo waxaa jira qofka soo maraya ama asiga noloshiisa kusoo biiraya, laakiin si degdeg ah noloshiisa uga faaruqaya ama uga baxaya. Sida banaanba bini'aadamkana ma dareemo nimcada inta ay hoostiisa taalo, wuxuu dareemaa marka uu waayo. Marka waqtiga wuxuu ka mid yahay ama zamanka wuxuu ka mid yahay qeybaha ama waxyaabaha qofka bini'aadamka marka noloshiisa kusoo biiraan ama uu helabo oo haddana si degdeg u dhaqaaqi kara. Sanadkii tagay ee 2020 wuxuu batay dhacdooyin fara badan oo wanaagsan iyo waxyaabo aad u xun oo aad u dhibaato u ah. Sanadkii tagay waxaan la kulannay dhacdooyin fara badan. Waxaa laga yaabaa inaad sagootisay, isla marhaantaana garabkaa ku qaatay saaxiibadaada, qofka aad jeclayd, waalidkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad sagootisay dad badan oo aad dunida ugu jeclayd. Maanta qofkii kula joogay 2020 waxaa laga yaabaa inuusan hadda kula joogin. Isaga wuu jeclaan lahaa inuu helo fursadaas aadka u wanaagsan oo aad adiga maanta haysatid, laakiin adiga ma dareemaysid qiimaha maanta ee kuu leedahay. Sanadkii hore waxaa isbedel weyn ayaad samaysay. Sanadkii hore ee 2020 waxaa samaysay isbedel aad u weyn. Noloshaadana waxaa ka dhigtay mid aad u qurux badan. Balse qorshaha maanta lagaga baahan yahay iyo dadaalka maanta lagaga baahan yahay waa in aad bartaadii aad ka sii wadaa. Dadaashaana Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu garab siiyaa, isla marhaantan u fududeeyaa qofka dadaalka la imaada. Allah subxaanahu wa ta'ala ma dayacayo dadaalkaaga haddii aad tahay qof dadka wax u tara, ummadan wax u soo gudbiya, bulshadiis dhinac uga jira, dadkan wax u tara wax wanaagsan. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku noqonayaa mid garabkaaga ah oo Allah subxaanahu wa ta'ala wax kastoo dhibaatana wuu kaa badbaadinayaa. Insha Allah ta'ala waxaa lagaga baahan yahay inaad noqotid qof dadkiisa iyo ummadiisa wax u tari kara. Sidoo kale waxaa jira waxyaabo fara badan ama caqabado fara badan oo qofka bini'aadamka ah ama dhalinyarada ay ka cabanayaan. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay adiga caadooyin xunxun oo aad adiga u leedahay waddo iyo sal aad adiga caadadaasi ku baabi'isid, waxaad samayn kartaa sida banaanba caadada xun ma baaba'do, keliya waxay ku baaba'daa in caadada xun booskeeda lagu bedelo caado wanaagsan. Waqtiyada caadooyinka xun samaynaysid ama xumaanta aad samaynaysid waa waqtiyada kaligaa tahay. Waxaad isku daydaa inaad heshid waqti kasta inaad mashquulsanaatid oo wax qabanaysid, iyosan dhicin waqti aad iska fadhido ama aad iska nasanaysid. Mar walba waxaa lagaga baahan yahay inaad mashquul tahay oo wax qabanaysid. Iskuna day kana fogow in aad kaligaa ahaato, waayo marka aad kaligaa tahay waa marka ugu badan ee aad adiga waxyaabo xun samayn kartid. Si dhab u duceyso Allah subxaanahu wa ta'ala waxyaabaha ku dhibaya ama waxyaabaha xun aan neceb tahay inaad noloshaada ka fogeysidna Allah subxaanahu wa ta'ala wuu ka fogey doonaa. Waxaan rajeynayaa sanadkan aan gadanay ee 2021 inaan la nimaano waxyaabo fara badan oo wanaagsan, inaan ka dhabayno riyooyinkeenna, inaan gaarno hadafkeenna, in waxyaabo fara badan oo nolosheena ka mid ah ay inoo xaqiiqoobaan. Walaal, ha dhayarsana ama ha aaminin dadka qaar waxyaabaha ay sheegayaan. Waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof ku dhahaysa ama dadka inaad ka maqasho ama xitaa baraha bulshada aad ku aragtid in la leeyahay sanadda 2021 waxaa la filayaa dhacdooyin fara badan, waxaa la filayaa waxyaabo fara badan oo dhibaato ah, waxyaabo soo kordhaya. waxyaabahaas oo idil muhiim maaha, niyadna ha u siin, waayo Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa ah midka og wixii dhici doona. Waxaa jira dad ku qaraabta, isla marhaantana been iyo propaganda ummadda u soo gudbinaya, isla marhaantana dadka marhabaabinaya oo dadka been ka dhaadhicinaya. dadkaasoo kale tana iska ilaaliya. Walaal, haddii aad tahay qof wax u soo gudbiya ummadda ama bulshada dhinac uga jira, fadlan ha soo gudbinin wax dadka kale siri kara ama xitaa dadka kale waswaasi kara. Ma ogid waxa dhici doona sanadda 2021 waxyaabo wanaagsan haddii ay yihiin iyo sidoo kale haddii ay yihiin waxyaabo xun. Sida banaanba haddii sanad cusub aan galnana ama haddii waqtigu isbedelo, waxaa wanaagsan sunno ah ayna fiican tahay in la duceysto oo laguna duceysto sanadkan khayrkiisa inuu Allah subxaanahu wa ta'ala soo xijiyo, wixii dhibaatana Allah subxaanahu wa ta'ala naga qabto.
waxaan rajeyn doonaa in noloshaada isbeddel ku keeni doonto waxyaabo fara badan oo wanaagsanna inaad la imaan doonto sanadkan ee 2021 wixii dhibaatana Allah subxaanahu wa ta'aala hanaga qabto intaas ayaa kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga ama barnaamijkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.